waad salaamantihiin ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan salaanka bacdi waxaan rabay maanta inaan laba kelmadood ka idhaahdo labadan garac ee fankii Soomaaliyeed ku xaaray waa dhoongadan dhinacyada soo xiiratay la leeyahay farxiyo kaba yaray iyo garacan yaray Ciise Jabuuti ka soo lugeeyay cawaala yar la yiraahdo labadaasba fankii Soomaaliyeed waad ku xaarteen waad ku matagteen waad ku qurunteen waad disheen fankii Soomaaliyeed waad ku tumateen dadka Soomaaliyeed hormuud baad u tiinay laba doqon baad tiinay oo waxay u tiin dad erayadooda la dhageysta maalin walba maxaa mansuuqiinta ka dhigay ee idinka isku soo meeraysiinaya ee waliba waliga gabadh baad tiinay waa leexantay isku haystaan laba saqajaan baad tiinay idab yaasha ma garateen teeda kala cawaalo adigu kaalay fanaan kasta ma saysataan waa yaabe fanaan kasta ma laga qabano kii horan kaaga helna fanaan walba kaaga helna oo waa cawaalo 2005 soo baxay darteed ugu heeliya dadku ka horeeyay wariyaahe waxa dadka ku badoosantii fanku waa fanun badweyntu waa badun meeshta gashab waa milix xagee dadka wax fiican ku faanatad mooysa waxana kugu waliba aan ka kala hayno waa wax naarta lagu galayo waliba aad akhrinaysan wixii naarta lagu galayo waad ku sii haysataan isku xishooday farxiyo kaba yar adigu bar guulatin baad riyanaysa mar cawaala laga haya mar mid Australia ka soo qarqalinayso ku soo caayaysa laga haya mar university baad soo suran tahay na isku xisho gabar baa tahay hadda waxaad moodayay berigii aad qorta dheer lahayd bariyaha ku iskusan lahayd ee ka daba ooyinad moodi naakiin baa ka dambeysay xisho oo gabdhaha yar yar dadka fanaaniinta ka dambeysay oo dhan nabad gali ee wada haystaan wada caayis nabad gali isku xishooda bisha Ramadaan ba soo gashay isku qacay labadiinaba fanka Soomaaliyeed ku xaarteen war waxa qacaamintii